bismillaahi raxmaani raxiim. halkan Ugbaad Healthy Cooking weeye. kusoo dhawaada asxaabta Ugbaad Healthy Cooking. fiidiyowyada qiimaha lahaay adiin soo gelin jirnay asxaabta nala joogta oo na taqaana oo fiidiyoyada mar walba fiirsato way mahadsan yihiin. waa aad bayna ugu mahadsan yihiin. kuwiina cusub soo dhawaada, wax badan baa naga faa'iideysaan oo casharo maxaan ku rahdaa qiimo leh oo bini aadanka qiimo u leh. maanta waxaan samaysanaynaa keegaasaan ku bilaabanaynaa daawasho wacan. halkaas waxaan ugu jira 5 xabo ukun shaharkeed ah. ukunta inteeda gaduudan weeye. marka keegaas aan samaynayno waa keeg aan rabno maanta inaan calanka Soomaaliya u ekaysiino. ukunta shaharkeeda gaar baan u xirbinaynaa daarto inuu ku noqdo keegaas keeg maxaan ku rahdaa very soft ah oo aad iyo aad u macaan oo maxaan ku rahdaa keeg jilicsan ah. ukunta kala qaybi, shaharkana meel ku shubo oo gaar u xurbi, ukunta inteeda kalena gaar u hagaaji. xabkana meel baa iyadana lagu shubtaa. marka hadda shaharkii baa halkaas noogu jira. waa kaasa shaharka markuu sidaas noo noqday oo sidaas softiga uu noo noqday xurbi ilaa uu sidaa kaaga noqdo. haddana waxaan ku daraynaa waxyaalihii aan ugu talagalnay inaan ku darno. waxaan noo diyaarsan hayl budo ah oo soo diyaarsanay iyo carfisadii iyo batar ama wax yar oo dufana oo batar waan soo kululeeyay. intaas rabaad inaan ku daro qaybta shaharka iyo sokorta shanta xabo ukun kasta waxay leedahay 3 qaado sokora iyo 3 qaado bur ah. marka waan kala qaybinayaa sokortii, qaybna waxaan ku darayaa 15 qaado sokorta ah shaharka, qaybna waxaan qaybta kalena waxaan ku darayaa xabka baan ku darayaa. marka ukuntii aan ku soo xurbinay wax yar carfisaa baan ku daray. markii aan sokortii aan ku soo xurbiyay shaharka hadda waxaan ku daray carfiso yara iyo hayl yaraan ku daray. haylkaas yarkaana waan ku daray iyo batar aan soo kululeeyay ama dufan yaro aan soo kululeeyay oo batarka kiisa fadhiya ah baan ku daray. marka waa isku xurbinayaa haddana sokortaan aad ugu xurbinayaa iyo waxyaalo yarkaan ku daray. intaan hadda waa shaharkii ukunta qaybteeda gaduudneyd. haddaa xurbiso saasay kuu noqonaysaa markasta. waa xurbinaynaa ilaa ay maxaan ku rahdaa ay noo noqdaan sidii aan ka rabnay caano yaroo qandac ah oo 2 qaado ah weeye. caanahaas waxay naga saacideynayaan in ukuntii shaharkeedii iyo sokortii isu keen galo oo si fiican ay u noqoto si oo softi ah. ukunta waan diyaarsaday, shaharka meel baan dhigtay. haddana waxaan xurbinayaa waa xabkii weeye. xabkaasna isagana waxaan rabaa inaan gaar u xurbiyo. hadda baan isku darsanaya labadooda, laakiin mid walba gaar baan u xurbinayaa. markii ay saas ii noqotay baan haddana xurbi ilaa uu kaaga noqdo wixii aad ka rabtay oo softiga ahaa. waa inuu aad iyo aad maartay soo haysto. sokortii baan hadda qaado ugu darayaa. sokortii intii hartay intii horena waxaan ku daray qayb baan ku daray. sokortaan kala qaybsaday. sokorta waa inay noqoto 15 qaado oo qaadooyinka waaweyn ah haddii ay tahay 5 xabo oo ukun ah. burkeeduna waa inuu noqdo 3 qaado ukun kasta 15 qaado oo bur ah bay noqonaysaa iyaduna. marka ilaa aan ka helo xabkii aan rabay ama softiga waa kaasa sidaas la rabo in noqoto. soo ma aragtaan waa inay saa noqoto. waa inay sidaa thick u noqoto. haddaa saxanka xataa foorarisid ma ka soo dhacaya markaas oo kale. waxaa lagu qiyaastaa saxanka saas loo foorariyaa ma kaaga soo dhacayso ukunta dhanba. haddana qaybtii horaan dib ugu noqonayaa. burkii baan rabaa inaan ku daro. burkii baan hadda ku darayaa iyo xabka kan aan gaarka u diyaarsaday. raali ahaada codka dib baan ka saaray. haddii doonaa waxbaa khaldami kara. marka horaan u duubay laakiin codkan dib ka saaray si aan sharqamaha iyo waxaas iyo dadku aysan u maqlin. cafwan. haddana burkii baan ku darayaa. soo ma aragtaan burka waa inuu noqdo 15 qaado ama hadda qofku intii isagu u qiyaasto xataa gacantiisa qofku waa ka garan karaa ukunta markaas inta ku filan. marka bahalka aad kor u qaadid xurbinka ukunta sida u laalaamayso waxaad maanta dhan soo xurbisanaysaa sida u laalaamayso ka garan kartaa. marka saa inta u laalaamato ay dusha isaga saarmato si dhar la laalaabay oo kale waa ku diyaar. markaas oo kale ukuntaadii keegaaga waa ku diyaar. burkii baan hadba ayraar ugu darayaa. burka haddaan ku daray waxaan ku darsaday haddana ukunta shaharka ahayd oo aan horey gaarka ugu xurubsaday baan ku daray. keeg hadaa rabtid aad iyo aad u wanaagsan sidaan u samayso oo soft ah very soft ah
waa ku darayaa haddana weli waan wadaa mid walba hadda xoogaa baan kusii daraya ilaa aan kaga dhameeyo. waa ku wada dhameeyey asxaabta ugbaad soo ma jeedaan waa ku dhameeyey. soo dhawaada markasta aad joogtaan please waa ku mahadsantihiin aad iyo aad baan mahad baan idinkugu haynaynaa inaad noogu dirtaan dadka subscribe. haddana meeshaan ku shubi lahaaba aan soo diyaarsaday meesha bahalka yarka waan dhaq waan nadiifiyey saliid yaraan ku jabciyey kabacdi bur yar haddaad ku firfidhisa burkaas ujeedadiis waxa weeyaan inaysan kaaga dhigin hadhow keegii baa kuu soo baxay ama waxa meesha aad ku shubaysay oo si fudud ah baa kaaga soo baxaya meesha. marka waan diyaariyey haddana ukunteennii waatana finalkeedii halkaan ay kusoo gabagabowday meeshaasaan ku shubayaa. haddaan halkaa ku shubana ovenkii waa iisii diyaarsan yahay waan shiday 180 kor ah iyo hoos dab isla eg waa inaad gelisad kor iyo hoos weliba hoos baa fiican marka hore in maaragtay in looga shido dabka suu usoo faxo marka u horeysa oo hoos uga soo bislaado. marka ovenka waa diyaarsan yahay waana kulul yahay isagoo kulul baan rabaa inaan geliyo muddo yar buuna ku jirayaa oo aan ka badnayn wax yar. ukuntaas 3 xabo ah marka maxaan ku sameynayaa shaharkan kala baxayaa waa shahar waa qaybtaas cadaanka ah inta gudaha waa iska dhigayaa intaas cad marka waxaan ka sameysanayaa cream baan ka sameysanayaa dadku saliid bay qaar ka sameeyaan saliid iskor la isku xeeyay saana xoog ay gala caafimaad badatay inkastoo wuxuu awal baskor iyo saliid iyo burba ahaayeen laakiin saana creamka oo sameysan kartaa ukunta cad ukunta awal biciirinka waa lagu cunaa wax dhigo malwaataasa saan u xirbinayay sidaas ay noqoto waa inay thick noqoto ama si adag oo is haysato ay noqoto oo aan biyo ahayn. sokortaasaan ku darayaa sokortaas waa sokorta icing sugarka la dhaho marka way macaaninaysaa cream bayna ka dhigaysaa marka si fiican loogu sii daro 4 qaado ilaa 3 qaadaan ku darsanayaa hadba intii maxaan ku raadaan isleeyahay dadba intaas ka sii badiyo laakiin ani waxaan ku daray intaasaan ku daray waana isku xirbinayaa. haddana waxaan ku daray carfisa yar waxaas dambe aan ku daray waa carfisa yar waan isku xirbinayaa ilaa aan ka helo creamkii aan rabay ilaa aan ka helo creamkaas aan rabo inaan maanta keega aan dusha aan ka mariyo. si kasta u sameysan kartaa creamka caadiga ah baad sameysan kartaa sida hadda supermarketadu wax saliid miirana weeye. kalarkaas aan ku daray kalarkaas waa kalarka oo buluuga ah intaa yartaaba igu filan waana ku qasanayaa wax yar weeye qaadada yar foodeeda oo kala weeye ama waad qiyaasan kartaa adigu hadda intuu ku noqon karo qof walba caqli ku ilaahay ku filan waa siiyey. marka sidaas igu noqoto kalarkaas aan rabay ii noqotay oo buluuga ah oo ii noqday kareemkii. marka waa gabagabadii asxaabta ugbaad keegiina dabku noogu jiraa markii aan kareemka aan diyaariyaan kasoo saaray insha Allah hadii la idmo waa ka keegii quruxda badan oo saas ah u noqday maasha Allah tabarakallah wax soft ah way aad iyo aad u jilicsan. haddana waxaan ku bilaabayaa inaan mariyo creamkii aan samaystay anoo gacanteed aan ku samaystay baan marinayaa ukuntii baan ka sameynaa shaharkeeda kaliya iyo sokortii yareydoo oo sokorta lagu sameeyo ice-ka ama jalaatada qofka sida u yaqaano lagu sameeyo bas. marka waa marmarsanaynaa anagu decoration fiican u sameyn mayno mana iibinayno xaafadaan ku sameysanaynay marka waa inta tabartiya waa dadaalnay waa kaasa waa kaasa sidaasaan waxaan decoration yaraan ku sameeyey xidigteeni calanka Soomaaliya dhex dhigay caruurta ma yaqaanaanba waxaan waa calankiina waa barta maanta calankiina aydan barayaa Soomaaliya ma garanayaanba calanka Kenya baa maskaxda ka galay awlaad in la baro weeye dhaqankoodii. marka asxaabta gobol waa kaasa keegaas quruxda badan oo saas u wanaagsan oo calankeena Soomaaliya ah. waa mahadsantihiin subscribe iyo like iyo share anaga qadinina keega kale hore aan sameeyay way ku jiraan channelka aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta ugbaad kulligiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.